adiga oo aan is-ogeyn oo isdhehaysid fariidnimo waaye hoos ha u dhigin ragnimada ninka kula nooliyey oo ay ka dhalatay rag badan inay sidaasi ragnimadoodii ku daciiftay oo maxaa la dhahaa ay u wacan tahay gabar inay sababto marka nin walba haddii hadda maanta su-aal la weydiiyo oo la dhaho ma waxaa rabtaa gabar qurux badan mise gabar dumar ah quruxda la weydiiyo oo reerkiisa للأسف هذا وحما هاي وحو آمسان هاي نفقضة إنو برياس كينو كليا إنه تهاي مسؤولية سار اسكو سوى نقط وناكسن طمان أصحابتي ذا مركلة البرنامج كي البودكاستيغا دكتور إذل عاو وحان قادم دونا ومانتي بوحان كغهل دونا موضوع إنبا عن عاديهين سلامركاسني aan filayo in uu dood badan dhalin doono waxaan rajeynayaa waaqica iyo fahamka mawduucan guud ahaan in ay bulshadeena faa'iido badan ay ugu jirto waxaan maanta ka hadli doonaa oo podcastigeen xalqadiisa labaad aan uga hadli doonaa fahamka dumarnimada iyo fahamka ragnimada dad badan oo naga mid ah waxay u arkaan dumarnimo marka laga hadlaayo iyo ragnimo marka laga hadlaayo in uu jinsi oo kaliya ay ku xiran tahay ninkan waa nin siduu ilaahay u sameeyey jirkiisa iyo qaab dhismeedkiisa sidoo kale gabadhan waa dumar dumarnimadeeda iyo siduu ilaahay u abuuray laakiin mawduuca intaas wuu ka baaxad weyn yahay marka laga hadlaayo fahamka dumarnimada iyo ragnimada waxaa jiro dareen ahaan tacriifo marka lagu tacriifinayo ama lagu macneynayo dareen dumarnimo iyo dareen ragnimo oo la rabo midba midka kale uu kaga duwan yahay tusaale ahaan gabadha maxay tahay calaamadaha lagu yaqaano dumarnimadeeda muxuu yahay calaamadaha lagu yaqaano ragga ragnimadiisa ma dhihi karno nin kasta waa nin rag ah sidoo kale ma dhihi karno gabar kasta waa gabar dumarnimadeedu ay aada u sareyso laakiin waxaa loo baahan yahay in isku dheelitiro dumarnimadaada iyo calaamadaha qaaska ee ragnimada marka qof kasta oo naga mid ah waxaa la rabaa dumar marka laga hadlaayo oo kale gabadha marka laga hadlaayo 70 calaamadaha ay leedahay waa in ay noqdaan calaamado dumarka loogu talagalay ilaa 80 soddon ilaa 20 kasoo xiran waxaa la rabaa in ay noqoto calaamadaha ay ragga ka qaadanayso ama sifaadka gooniga ah sidaas si lamid ah ninka ragga ah waxaa la rabaa isna in ay noqoto 70 ilaa 80 calaamadaha ragnimada halka 20 ilaa 30 ee laga rabo in ay noqoto calaamado qaas oo ka qaadanayo dumarnimada haddii ay dhicweyso gabadha in calaamadihii dumarnimada ay ka xoog bataan calaamadaha lagu yaqaano ragga waxay noqonaysaa gabar ragnimadu ay ku badan tahay taasna waxay ku keeni doontaa qalal ama wax ay dhibaayo gabadhaasi dabiici siduu ilaahay u abuuray sidaasi si lamid ah ninka ragga ah marka ay ku bataan calaamadaha dumarnimo ama dareemada dumarka lagu yaqaano waxay noqon doontaa asina inay saameyn weyn ku yeelato ragnimadiisa bulsho ahaan marka laga hadlaayo bulshadeena Soomaaliyeed guud ahaan dumarkeena marka la fiiriyo waxaa aad ugu badan in dumarkeena ay ku badan tahay calaamadaha ragnimada waxaa jiro tacriifyo ama micno qaas ah oo loo sameeyay gabdhaha kuwaasi oo lagu marin habaabiyay aniga ahaan aaminsanahay fikradeyda ay ka mid tahay gabadhan waa gabar bir ah iron lady la dhahaa gabadhan waa gabar karti badan gabadhan waa gabar isku filan oo cidna aan u baahnayn gabadhan waa gabar independent woman gabar ayada isku tiirsan oo qofna aan ku tiirsanin qofna aanan u baahnayn yani waxaana laga dhaadhiciyay dumarnimada in ay tahay gabadh inay wax ka qabsato nin inaysan u baahnayn qof ay ku tiirsan tahay inaysan u baahnayn waxaa lagu xiray qiimaheeni iyo waxyaabihii dabiiciga aan lahayn waxaa lagu xiray gabadhan
haddii ay waxyaabo badan qabato, culeysyo badan haddii ka gudubto, hadday wax badan xaliso, hadday guulo badan gaarto, in ay tahay gabar balaayo ka dhacday. halka loo arko gabadha iska degan, iska raaxaysato, in ay tahay qof liidato oo qiimaheeda waxaa lagu xiray in injaazaadka ama guulaha nolosha aan ka gaareyno in lagu xiray. marka dabeecadihii loogu talagalay gabadha hadday ka bataan tii ragga, waxay noqon doontaa gabar walwal badan ku nool, deganaansho aanan lahayn, buuq badan. sidaas si lamid ah waxaan ugu wacanaa dhihi karaa bulshadeena Soomaaliyeed marka laga hadla sababta ugu badan ee gabdhaha Soomaaliyeed ay ugu badan tahay dabeecadaha ragnimada waxay tahay dhibaatooyinkii, qaxii, dagaaladii sokeeyo, traumooyinka badan oo wadankeena ka dhacay, habka koriimadeena naloo soo koriyey, naloo soo barbaariyey, waxyaabahaasi oo dhan ayaa keenayo. calaamadaha dumarnimada ugu horeeya number 1 marka laga soo tago qaab muuqaalka ee gabadha u samaysan tahay jir ahaanteeda, waxaa jiro tacriif kale oo qaas ah. gabadha dumar markii la dhahayo ama laga hadlayo waa dumarnimada inaad gudahaaga ka dareentid, dareen gudahaaga ka imaanayo oo aad ku raaxaysanaysid dumarnimadaada, oo aad ku dareemaysid masiino, oo gudaha inaad ka aaminsan tahay in aad tahay qof dumar ah. calaamadaha marka aan usoo degdegno ama usoo laabno calaamadaha number 1, calaamada koowaad waa deganaan. gabadha in ay tahay gabar degan, buuq aan lahayn, qeelo badneen, xasilan. calaamada labaad waa daryeelka. gabar bixiso daryeel, hadday noqon lahayd dadka ku hareereysan sida waalidkeeda, walaalaheeda, waxay dhashay, qofka lamaanaha leh. calaamada saddexaad waa naxariista. calaamadeena afaraad waa quruxda. qof jecel in ay mar walba ka shaqeyso quruxda nafteeda iyo quruxda meesha ay ku nooshahay ee ku hareereysan. calaamada kale waa gabar wax qaadato, wax aqbasho. wax qaadato marka aan leeyahay waxay tahay gabar inta la siiyo, inta ayada ay bixiso waxaa ka badan inta ayada la siiyo. waxaa jira gabdho badan oo markii wax la siinaayo ama hadal ama gift ha noqoto ama diidaan badanaa oo dhahaan maya ma qaati, ma u baahni oo kale. yani cadaa markii la dhaho qaadashada way ku badan tahay gabadha dumarnimada, oo inay wax qaadato, aqbasho, hadal wanaagsan, ammaanta waa qurux badan tahay. haddaa dhahdid maanta dharkaaga aaday u qurux badan yihiin, waa mahadsantahay dhehaysaa, she accept, macnaha way aqbashaa, way qaadataa. calaamada kale waa dulqaadka. waa qof dulqaad, maadaama deganaan aan soo sheegnay, taas macnaheedu waxay tahay in ayadana ay leedahay dulqaad, qof wax xamili karo inay tahay. calaamadeena kalena waxay tahay tartiibta. degdeg badan kuma furno, hadday noqon lahayd hadalkeeda, socodkeeda, howlaha ay qabato oo dhan. haddaa tusaale usoo qaadno oo kale, gabar meel joogto ama wiil iyo gabar meel isla joogaan, wax meeshaas haddii howl laga qabanayo, firfircoonida ugu badan iyo dhaqdhaqaaqa ugu badan, degdega hadday gabadha ku badan tahay, macnaheedu waxaa waaye waxaa ku badan calaamadaha ragnimada. haddii wiilku uu yahay wiil iska fadhiyo, iska degan, oo shaqo badan iyo howl badan aan qabanaynin, calaamadaha midnimada way ku yar tahay oo tan dumarnimada ku badan. marka waxaa la rabaa gabar kasto inay marka isku dheeli tirto calaamadeeda dumarnimada 70% ilaa 80 inay haysato, 30 ay ka qaadato tan ragga. okay. oo jinsiga oo keliya kuma xirno ragnimada, laakiin waxaa ugu muhiimsan number 1 waa hogaaminta. ninka inuu yahay qof hogaan ku fiican oo wax maamuli karo, sidoo kalena mas'uuliyadda waa calaamadaha ugu muhiimsan ee ragnimada. inuu yahay qof mas'uulka ah wax walba oo asi hoos yimaadaan. hadday noqon lahayd gabdhaha hadday la dhashteen, gabdha hadduu dhalay, xaas hadduu leeyahay,
meel walba uu joogo macnaha inuu dareemo mas-uuliyadda ka saaran gabdhahaasi oo yani ilmaha hadday noqdaan hooyadooda, hadday noqoto xaaskiisa, walaalihiisa, waalidkiisa, dhammaan kulli. awoodda marka aan dhehayno murqa ma aha awoodda, yani inuu wax qabto, shaqeeyo, wax raadiyo, juhdi badan bixiyo, dagaalamo, wax yani qof iska fadhiid oo waxba aan kala jecleen ma aha. Calaamada kale waa geesinimada, nin geesi oo wax xaaladaha kala wajaho. badanaane calaamadaha ragnimada markii dumarka loo fiiriyo aaday ugu duwan yihiin. calaamada kale waxay tahay go-aan qaadashada. badanaa go-aan inuu qaato way u fududahay oo way ku fiican yihiin dadka nimanka ragga ah inay go-aan qaataan. adeega gabadha maadaama aan dhahnay jiljileeca iyo dabacsanaanta, ragga calaamadahooda waxaa waaye adeega, badanaa waxaa waaye mantiq, wax oo fikir, xaalad wax badanaa ku qiimeeya marka la fiirinayo gabadha dareenkeeda iyo mashaacirteeda badanaa ay adeegsanayso. marka asna waxaa la rabaa calaamadahaas oo ragga ah qayb ka mid ah hadda aan soo sheegnay inay ku bataan dareenka mas-uuliyadda, hogaaminta, maamulidda, geesinimada, wajihitaanka, degdega, maxaa la dhahaa go-aan qaadashada, fikirka, guulaha inuu gaaro, inuu ordo, inuu maanta dhan macnay wax ay ku furan yihiin, injaas inuu gaaro. waxaa waaye sifaadka lagu yaqaano ama calaamadaha lagu yaqaano ragga. marka waxaa la rabaa asna 70% ilaa 80% inuu calaamadaha ragga uu lahaado, 30% kalena uu ka qaato dumarka. calaamadaha dumarnimadu uu qaadanayo maxaa waaye naxariista, maxaa la dhahaa daryeelka oo kale inay ku yaraato, macnahaasi ay ku yaraato laakiin ay badato kuwii ragga. gabadhane qaybta oo dumarnimada inay ku badato calaamadaha ugu muhiimsan, qayb yar oo 30% ilaa 20% ay ka qaadato qaybta go-aan inay qaadato, injaas ama guul inay gaarto, inay dadaasho, inay wax qabato oo kale. intaasay ku kala duwan yihiin. waxaa dhacday marka anigoo dumarkeeni anagoo aaminsan isku filan inaad tahay, inaadan nin u baahnayn, inaad keligaa taagnaan kartid, waxay keentay in lagu soo barbaaro ama bulshada ay kusoo barbaarto gabar iskeed u taagan oo gooni u taagan oo aan qofna u baahnayn. taasina waxay ku abuurtay qalqal dumarnimadeeda. waxaa ka dhashtay gabadhi inay xasilooni ay qaadibeyso, si walba u dadaasho, si walba u dagaalanto, buuq badan ay ka qaado because mas-uuliyaad badan ay qaadaysaa. dumarnimadan waxaa waaye sida saxda ah gabadha inay raaxo badan hesho, nasiino badan hesho, waxa ay ku raaxaysanayso inay samayso, inay wax aqbasho, wax qaadato, ayada mar walbo ee u noolaato sida boqortooyo loo shaqeeyo. haddaa dib u fiirino weyska badankeena ay usoo koreen, waxaa kusoo kornay bulsho ama aabihiyaa geeriyooday, ama aabihiyaa wadanka ka tagay, ama aabihiyaa shaqo fiican ama haysanin. hooyooyinkeen waxay isku haayeen mas-uuliyaddii guriga, mas-uuliyaddii caruurta, mas-uuliyaddii aabaha laga rabay inuu kasoo baxo oo biilkii noloshii kale ahayd inay isku wada qabato. sida dabiicigana ilaahay maba u abuurin marka horeba haddii dumarka loogu talagalay in ay mas-uuliyaadka reerkaas ee masruufka iyo lacagta iyo waxaas ayada loogu talagalay. ilaahay nafaqada ma saari lahayn ragga oo wuxuu dhihi lahaa gabadha haaf ha bixiso, wiilka haaf ha bixiyo, ama gabadhaa la saari lahaa. laakiin waxaa la ogaa culeyskaas gabadha inaysan xamili karin. marka waxaa ka dhashtay culeys badan oo maamadii ama hooyadii ay qaadi karin. waxay ilmihii kusoo tarbiyeysay hooyo shaqaynayso, ordeyso, dadaaleyso, juhdi badan, qof caawinaya isan lahayn, aaminsan inay karti badan tahay, wax badan qabsan karto. because tacriifkii loo bixiyaa karti iyo waxaa lagu tacriifiyay gabar balaayo ka dhacday, ammaanaa laga dhigay wixii. duruuf iyo duruuf la-aanba waxa ay keentaba waxay noqotay gabadhii marka in ay ku badato sifaadkii ragga looga baahnaa oo ahaa inay ayaga dadaalaan, maxaa la dhahaa juhdi badan bixiyaan, mas-uuliyaadka qaadaan waaweyn. meesha waxaa ka baxay marka sifaadkii ayada loogu talagalay, waxaana ka dhashtay qalqal, maxaa la dhahaa buuq badan, culeys badan, stress badan,
dulqaad la-aan inaysan dulqaadan karin xanaaq badan qeelo badan marka ilmihii markas hooyo aanan faraxsanayn ama culeysyo badan oo nolosha haystaan kusoo koreen wiilkan wuxuu arkayay hooyadiis oo shaqeyso gabadhin waxay arkaysay hooyadeeda oo shaqeyso normal nolosha sidaa ku noqotay ilaa hadda gabadhii rabto inay wax qabsato ninkii la tartanto taasna waxaa dhalatay in mas-uuliyaad badan oo laga rabay ragga inay qabtaan hooshoodan ay tahay in lala farageliyey oo ay ka dhalatay rag badan inay sidaasi ragnimadoodii ku daciiftay oo maxaa la dhahaa ay ugu wacan tahay gabar inay sabab u tahay sababtoo markuu ninka uu arko in wax walba loo khidmeynayo lacagtii iyo gurigii iyo noloshii iyo wax walba loo fududeeyey oo mas-uuliyaadkii dhan ay ku yaraadeen mar walba oo mas-uuliyaadka iyo juhdiga uu ninku ku yaraado waa mar walbo ragnimadiisa hoos usii dhaceyso mana ogo jahli ahaanana keenayso wuxuu u arkaa inuu raaxaysanayo laakiin iska warhaayo ilaa iyo mustaqbalka ee dhibaatooyin kale ay ku keento mar walba oo ninka mas-uuliyaadkiisa iyo juhdigiisa iyo dadaalkiisa iyo waxqabadkiisa mar walba ninka kale uu ka waxqabad badan yahay dhanka dadka uu mas-uulka ka yahay uu hogaaminayo uu maamulka u yahay waa mar walba oo ragnimadiisana ay zaa-ido sidaas si lamid mar walbo gabadha juhdi badan iyo dagaal badan iyo mas-uuliyaad badan ay isku hayso waa mar walbo buuqeeda iyo deganaanshaheedana yaraado buuqeedana bato mar walbo buuqaaga iyo ee badatana waa mar walbo dumarnimadaada ay hoos u dhacdo marka nin walba haddii hadda maanta su-aal la weydiiyo oo la dhaho ma waxaa rabtaa gabar qurux badan mise gabar dumar ah quruxda waa saa anaga aaminsanahay nin walba inuu raadinayo gabar qurux badan laakiin nin walba wuxuu dooran lahaa gabar dumarnimadeedu ay sareyso dumarnimadaada inay sareysan waxay ku xiran tahay deganaansho inaad noqotid gabar degan xasilan buuq aan lahayn oo laga helo deganaansho daryeel iyo naxariis taasna waxay ku imaan kartaa in mas-uuliyaadkaaga aad qaadatid mas-uuliyaadka kale ninka loogu talagalayna aad u dhaaftid laakiin hadday dhici weyso in gabadha ay mas-uuliyaad badan ayada qaadato oo sida ninkii oo kale u dagaalamayso dumarnimadeeda aysan ku raaxaysanaynin waxaa ka dhalanayo in aysan ku faraxsanayn nolosheeda cadaadis badanna ee nolosheeda kala kulanto ilaa iyo caafimaadka maskaxdeeda oo dhib ka imaado marka waxaa laga rabaa gabar haddaad tahay inaad wax aqbashid caawimaadda waa inaad aqbashid in lagu caawiyo inaad ka shaqaysid sida ugu fiican oo nasiina aad ku heli lahayd si aad deganaansho u heshid litaskunu nabi aadan markii la abuuray waxaa la keenay xawaa sababta ugu muhiimsan oo xawaa loo keenay waxay ahayd inuu wehel iyo qof oo sukuun ama deganaan uu ka helo deganaanta la sheegayo gabadhaa laga helaa ninka deganaan wuxuu ka raadiyaa xaaskiisa asalkan waxaa waaye gabadha inay ayada bixiso deganaanta marka qof laga sugaayo asalkeeda inay deganaan bixiso oo huduu iyo naxariis iyo laga rabay ayada hadday deganeen marka waxay noqonaysaa laba nin oo guri isla joogaan oo kale si taas ay u dhaliso marka gabadha marka si ay deganaan u bixiso nin walba wuxuu rabaa gabar degan oo faraxsan oo xasilan si aad u heshid gabar degan oo xasilan waxaa lagaa rabaa gabadhaas sida ay degnaan ku heli lahayd adiga inaad ka shaqaysid oo mas-uuliyaadka adiga lagaa rabay inaad adiga qaadatid hadday noqoto mas-uuliyad walaal hadday noqoto mas-uuliyad aabe hadday noqoto mas-uuliyad nin xaas leh hadday noqoto mas-uuliyad nin waalidkiisa mas-uulka ah mar walba waxaa la rabaa hooyada walaasha iyo xaaskaaga iyo gabadhaadaba afartaba in mas-uuliyaadka ragnimadaada adiga ay kaa soo baxdo si aad u heshid xasilooni iyo deganaan iyo daryeel iyo farxad aad uga heshid qofka kale ee dumarka ah saaran gabadhan waxaa la rabaa inay dumarnimadeeda ka shaqeyso dumarnimadaada inaad ka shaqaysidna kuma xirno oo keliya inaad jirkaaga qurxisid oo keliya qayb ka mid ah oo muhiim ah waa in aad jirkaaga quruxdiisa iyo qaabkiisa iyo aad ka shaqaysid laakiin
qeybaha kale ee dareen ahaan dumarnimadaada iyo sifaadka kale iyo calaamadaha kale aan soo sheegnay oo dhaqanka iyo hab dhaqankaba in ayadana aad ka shaqaysid habka aad u dhaqmaysid codkaaga hadduu noqdo socodkaaga hadday noqoto codkaaga markaa dhahayo banaanka markaa ku hadlaysidna waa gooni inaad u hadashid gurigaaga markaa ku hadlaysidna waa gooni banaanka walaa taqdaqna fi lqowl inaan hadalka loo dabcinin ragga kale oo ajnabi ka ah gurigaaga markaa joogtid oo xaajigaaga ala hadlaysidna inaad si kale aad kula hadashid laakiin hadday noqoto cagsi banaanka markaa joogtid cod dabacsan inaad leedahay gurigana caash carab dheer aad ka tahay dhib ayaa ka dhalan doono marka raggeena Soomaaliyeed qeyr badan allaha siiyo wixii ay seegeen ama ay waayeen waxaa aaminsanahay in ay keenayso wax aysan ku baraarugsaneen iyo wax waalidkeen awowyaasheen iyo aabayaasheen ay ka dhaxleen waygiina loo soo koriyay inay qaateen laakiin cilmiga wuu baaxad weyn yahay kutub badanaa jirto waag badanaa jiraan muuqaalo badanaa jiraan oo ka hadlayo cilmigaas in la baaro oo la akhriyo oo la fiiriyo mas-uuliyadda iyo qawaamada haddii aan ka hadlo arijaalu qawaamuuna cala nisaa qawaamada laguu sheegayo ma ahan inaanin rag tahay oo keliya laakiin qawaamada waxaa waaye waxa aad bixisid mas-uuliyadda sidaa u qaadatid hadday noqoto mas-uuliyadda gurigaaga ilmahaaga xaaskaaga laakiin anaga mas-uuliyad haddii nin Soomaali la weydiiyo oo reerkiisa للأسف هذا وحما هاي وحو آمسان هاي نفقضة إنو برياس كينو كليا إنه تهاي مسؤولية سارن لكن وحو آمسان هاي المهيس إنه مسؤولية كسارن تهاي حاسكيس إنه مسؤولية كسارن تهاي ماشي سوحا كدلنا يمرك نينك مر والبا أو مسؤولية دي كبدا أو دايعو تي المهن وكبدا كودايو إن أيضا إيويسو support أما قف عاويو أما سند كل شيء وباهم تهدو dumarkan waxaa waaye mas-uuliyadda guriga inaad kala qayb qaadatid tan caruurta inaad kala qayb qaadatid taageero dareen ahaan in aad siisid okay marka qawaamada in si fiican loo fahmo mas-uuliyaadka ragga leeyihiinna in ragga ku baraarugaan gabdhahan ay ku baraarugaan la kala qaato doorka qof kasta doorkiisa uu si fiican uga soo baxo qofka kalena doorkiisa uu qaato موضوع aad u baaxad weyn waaye muuqaalkan oo kaliya kuma soo koobi karo waxaa rajeynayaa si fiican in aan dad badan oo Soomaaliyeed oo uga falanqeeyo inaan helno hadda si hoosaada badanaa mawduucyadaan inta looga hadlaa waxaa leenahay group badanaa gabdhaheen una ku sheekeysano oo gabdhihii ku baraarugsan hadda waxaa la joogaa waqtigii raggana loo gudbin lahaa waaqic la bedeli lahaa wax badan oo faa'iidana way ku jirtaa mar walba oo dumarnimada gabadha ee ku badatana waa mar walba oo farxadeeda ee badato mar walba oo farxadda gabadha ee badatana waa dadka ku hareereysan mar walba ee farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ay gaarsiin karto marka si wada jir ah in loo shaqeeyo marka haddaa hooyo tahay haddaa gabar la qabo tahay haddaa gabar walaal ah aad tahay u ogolow qofka oo ninka ah ee kula nool ama walaalka ama ninkaaga ama wiil aad dhashay in ay bartaan ragnimada waxay tahay qaataan mas'uuliyaadkooda hala joojiyo horboodka la boodaayo ragga oo mas'uuliyaadka ay leeyihiin laga qaadayo hadhowna dhib baa ka dhalan doona kumanaan gabdho waxaa joogaan jaamacada ka bixiyaan wiilal ay dhashteen meesha laga rabo wiilash in ay wax qabtaan kumanaan gabdho waxaa joogaan maxaa la dhahaa rag ayaga qabo mas'uuliyiin ayaga ay yihiin oo biilkii guriga iyo noloshii guriga ayaga ay bixinayaan wixii duruuf ay keento waa gooni laakiin sida normalka oo dabiiciga ka hadleena nin kasta inuu waajibkiisa ama wixii xaq uu Ilaahay saaray uu qaato qurux badan sida dabiiciga oo Ilaahay noo abuurana waaye haddii mawduucan aad ka heshay ama comment aad ka qabtid qaybta commentiga noogu reeb like noo saar si muuqaalka uu dad badan u gaaro waxaan rajeynayaa muuqaal kale inaan kasii sameyno si fiican loogu sii fahmo kan hadda waa iska concept oo iska kooban yahay taariifka guud aan ka hadalnay insha Allah waxaan rajeynaynaa ciwaano kale oo intaas ka badan marka ugu dambeyn waxaan leeyahay adiga oo aan is ogeyn oo isdhehaysid fariidnimo waaye hoos ha u dhigin ragnimada ninka kula nool
sidoo kalena qalqal ha gelinin dumarnimadaada oo ha iska qaadin xasilkii iyo degnaantii iyo farxaddii lagu talagalay in aad lahaatid ka dumar ahaan. cashirkeena caawa ama podcastgeena caawa waxaa rajeynayaa in aad si fiican uga bagatid. waa idinkaga mahadcelinayaa daawasho muuqaalka. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar. haddii aad horena na joogta markale waxaan kaa codsanayaa inaad like-ta iyo share-ta na siiso. mahadsanidin.